السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawade kusoo dhawow cashirkeeni labaad ee barashada luqadda Turkiga. Anagoo maanta ciwaan ugu dhigi doono sida qof Turkiya aad magaciisa u weydiin lahayd. daawade haddaan ugu cusub tahay fadlan subscribe dheh si ay ku soo gaaraan cashirada dambe. aynu bilowno haddaba cashirkeeni labaad ee barashada luqadda Turkiga. Anagu ciwaan ugu dhignay sida qof Turkiya magaciisa aad u weydiin lahayd. luqadda Turkiga waxaa loogu hadlaa laba qaabood oo kala ah: kow, sida rasmiga ah; lamo, iyo sidaan rasmiga ahayn. sida rasmiga haddaan wax ka sheegno waa sida dadka ka waaweyn iyo dadkaad ixtiraamaysid. sidaan rasmiga ahayn waa caruurta markaa la hadlaysid iyo saaxiibada iyo caruurta. haddaba aan ku bilowno sida aad dadka waaweyn ula magac u weydiin lahayd. adenisna magaca. adenisna magaca. adenisna magaca. adenis nadir magacaagu waa maxay? adenis nadir magacaagu waa maxay? isminis nadir. isminis nadir. isminis nadir magacaagu waa maxay? isminis nadir magacaagu waa maxay? ad iyo isim waa laba eray oo isku micno ah, waxayna ka turjumayaan magac. inis iyo inis waa dabagalayaal. inis iyo inis af Soomaali waxaa lagu dhahaa dabagalayaal. waxaana la dhihi karaa saddexan. nadir iyo na. nadir iyo na. nadir waa maxay? na maxay? nadir waa maxay? na maxay? haddaba aynu galno sida aan rasmiga ahayn. adinna magaca. adinna magaca. adinna magaca. adinna magaca. adin nadir magacaagu waa maxay? adin nadir magacaagu waa maxay? adin nadir magacaagu waa maxay? ismin nadir. ismin nadir magacaagu waa maxay? tanishtumiza memnun oldum. tanishtumiza memnun oldum. tanishtumiza memnun oldum farxad bay ii tahay in aan ku barto. farxad bay ii tahay in aan ku barto. amase waxaad dhihi kartaa barasho wanaagsan. barasho wanaagsan. hasuu ku jawaabayo qofku wuxuu ku leeyahay bendi memnun oldum. bendi memnun oldum aniguba farxad bay ii tahay. aniguba farxad bay ii tahay. waxaad dhihi kartaa oo kale barasho la mid ah. barasho la mid ah.